qaybtanna waa qaybtii labaad oo ka hadlaysay masturbation siigaysiga. Run ahaantii weli waxaan ku guda jirnaa 10kii qodob oo dhibaatooyinka kaaga soo gaari lahaa haddii aad lacala caadaysatay in aad si joogto ah u isticmaalayso siigaysiga. Haddana qodobka 9aad ayaan rabaa in aan ka hadlo waxyaabaha siigada haddii aad lacala si joogto ah u isticmaasho kaaga soo gaari karo. Qodobka 9aad wuxuu kaloo keenaa waxa loo yaqaano semen leakage oo ah in biyuhu soo dareeraan iyadoo wax dareen kacsi ah uusan jirin, ama iyadoo kacsi jirin in qofka uu biyo baxo ama isagoo aan dareeminba xilliga uu biyo baxayo. Run ahaantii waa xaalad aad iyo aad u xun haddii aadanba ogeyn ama aadanba dareemayninba xilliga biyahaada ku baxayo meel un. Marka mar walba waxaa waajib ah ama mar walba waxaa nugu habboon in aynu ogaano biyo baxeenu meeshuu ku baxayo iyo meeshii kale iyo xilligii naga imaanayo. Haddii aadan lahayn dareen dhanka biyo baxa, run ahaantii xaaladaada ma sahlsana ilaa mooye aad iska joojiso siigaysashada aad caadaysatay sida joogtada ahna aad u isticmaalayso. Qodobka 10aad oo ugu dambeeyay waxa weeyaan dhibaatooyin nafsaani ah sida hilmaamida iyo xifdin la'aanta. Tani waa mid ay dhaqaatiirta arrintan la tacaalo ay ka sheegaan dadka caadaystay hawshan. Waana arrin ay dhib badan tahay in caafimaad ahaan loo xaliyo haddii ay ka soo gaartay siigaysiga. Run ahaantii 2 arrin ayaa jirto. Labadaasna arrin wax weeyaan lacala haddii aad isku aragto adigoo ah arday oo baranayo wax un wixii maanta lagu dhigay aadan awoonin inaad biri keeni karto, aadanna si joogto ah u isticmaalaynin siigaysiga. Ha isdahan waxaani intay iga yimaadeen, waayo qofka arday haddii uu yahay sidiisaba waxaa laga baahan yahay maanta wixii loo dhigo in uu haweenkii ku celiyo kadibna bir subaxdii asigoo kor ka hayo in uu wixii ka baxo. Mid labaadna wax weeyaan haddii aad isku aragto wax maanta aad qabatay aadan birina xasuusan karin, xaaladaasina waxa uu keli ayaa ku keeni karto haddii aad wax si joogto ah u isticmaalayso waxaasina ama sheygaasina oo ah siigada. Haddii aad basato siigada waxa ayaa hubaal ah wax maanta aad qabatay in aadan xasuusan doonin isla birito ama saacada kadibba. Run ahaantii siigada badan waxa ay keentaa xasuus la'aan iyo xifdin la'aan. Marmar qaarna waxa ayaa laga yaabaa haddii aad arday tahay oo aad isku aragto wax maanta lagu aqriyo aadan birina keeni karin in laga yaabaa aad sameynaydo waxyaabahani oo diinteenu laga xarantameeyay, dhanka caafimaadkana laga xarantameeyay. Marka siigada sidadba maahan mid u fiican nolosheena. Siigada waa cadowgeena koowaad oo nolosheena burburisa. Haddana waxa ayaan rabaa qaabka loo joojin karo siigada in aan idin sheego, maadaama hadda in aan soo aragnay 10ka qodob oo haddii aad lacala aad soo sameyn jirtay siigaysiga joogtada ah waxyaabaha aad kala kulmi karto. Haddana isku day in aad ka ogaato qaabka la iskaga joojiyo siigada. Run ahaantii waxaan kula talin lahaa dhalinyarada arrintan sameynayso in ay diinta wax khilaafsan ay ku tahay ama laga xarantameeyayba siigada.
caafimaadka iyo mustaqbalkoodana saameyn weyn ku leh. Sidaa awgeed, haddii aad awooddo in aad guursato oo arrintan si sharci ah oo caafimaadna ku heli doontid ay kugu suurgalayso, waan kugula talin lahaa. Haddii aadan awooddaas aadan haynin, waxaan kugula talin lahaa in aad raacdid taladii rasuulkeena nabigeenu Muxammad sallallahu alayhi wasallam, nabadgeliyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, in uu dhalinyarada kula dardaarmay in ay soomaan haddii uu dareenkooda uu kacsan yahay. Waana wax cilmi ahaan loo arkay in soonka uu hoos u dhigo hormoonada ama dheecaamada la xiriira kacsiga. Haddii aad caadaysatay ama la qabsatay sigaysiga, waa in aad la xiriirtaa dhakhtarka loo yaqaano kuna takhasusay ama dhakhtarka loo yaqaano psychologist si lagaaga gooyo. La qabsashada aad la qabsatay sigaysiga. Haddii ay dhibaatooyinkan kugu daaheen oo ayna ka go'an tahay in aad iska joojisid, fadlan la xiriir dhakhtarka aad ku kalsoon tahay si uu talo kugu siiyo. Aniga ahantayda, talooyinka guud aan ku siinayo waxa weeyaan 5 talo, kuwaasoo ah: midda koowaad waxa weeyaan in aad iska joojiso sigaysigu xitaa haddii ay dhib kugu tahay. Midda labaad waxa weeyaan isku day mar walbo in aad cunto ama cuno dheelitiran. Waxaad badsataa qudaarta iyo fruitiska qaybihiisa kala duwan. Midda saddexaadna aan kugula talin lahaa waxa weeyaan iska jooji caadooyinka kale ah ee xunxun oo arrintan ku horseedi karo, sida daawashada filmaanta xunxun iyo isticmaalka maandooriyaha sida qaadka iyo wixii kale la mid ah. Marka haddii aad isticmaasho ama haddii aad tahay qof balwad isticmaal ah sida qaadka iyo waxyaabaha kale oo isticmaalaya aad tahay, fadlan isku day inaad iska joojin karto waxyaabahaasi. Midda ugu dambeysay oo 5aad oo aan kugula talin lahaa in aad iska joojiso sigaysigu waxa weeyaan haddii aad tahay waalid oo aad carruurtaada uga cabsi qabtid arrintan, waa in aad si waalidnimo iyo saaxiibtinimo ku jirto aad kala sheekaysataa carruurtaada adigoo si dadban oo aan canaanan iyo ciqaab ku jirin ugu wacyigeli. Haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeraad ama su'aalo aad qabtid, waa i soo weydiin kartaa. Waxaan idin rajaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caafimaad. Fadlan isku day in aad noqoto qof mar waliba ka taxadiri doono caafimaadkiisa guud, waayo caafimaadka lagu sheegayo waa shay qaali ah. Maanta haddii aad caafimaad qabto, ku shukri Ilaah, waayo caafimaadku maanta haysato ma ahan mid adiga iska keensatay, waa mid Allah subxaanahu wa tacaala ku siistay weeyaan. Run ahaantii cashirkeenu maanta waxayuu ku egyahay intaan. Mar walibana noqo qofkii ku dadaali lahaa caafimaadkiisa guud. Insha Allah, waxyaabo kale ayaa jiraan oo aan idin soo gudbi doono oo ku saabsan dhanka caafimaadka. Waxyaabahaasina waan idin soo gudbin doonaa maalin walba maalinta ku xigto. Marka isku day walaal ama walaashayda qaaliga ahayd in aad channelkayga igu samaysaan share fara badan.
iskuna day in aad asxaabtaada u sheegarayso. All of you, I wish you all the best. Have a nice day.